barnaamijka aynu maanta ka sheekeynayno waxaynu ugu magac darnay fursadda isbedelka ama isbedelka fursadda. waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid oo tidhaahdid waa maxay isbedelka fursadda ama fursadda isbedelka. fursaddu ayadaa waxay tahay isbedel. haddii aad fursad hesho alaa waxaa dhacda inaad isbedeshid. isbedelkuna waa fursad, waayo marka adigu naf ahaan aad isu bedeshid waxaa timaada inaad fursad heshid, laba fursad heshid, fursado badan heshid. marka fursaddu waxay ku jirtaa isbedelka, isbedelkuna wuxuu ku jiraa fursadda. bisha barakeysan aynu ku jirno ama bisha Ramadaan waxa aad ay muhiim ugu tahay qofka doonaya inuu wax bedelo, naftiisa wax ka bedelo, dabeecadiisa wax ka bedelo. laga yaabo in uu leeyahay caado dhaqameed xun oo maxaan ku idhaahdaa hab dhaqan xun oo uu leeyahay ama qalafsan oo uu doonayo in uu bedelo ayaa suurtagal ah. sideen wada ognahay ma jiro qof macsuum ka ah khaladaad ama waxyaabo xun. qof walba inaga mid ah waxa uu leeyahay wax xun, caado xun buu leeyahay, dhaqan xun buu leeyahay, qalafsan, aan wanaagsanayn, aan xirfad ahayn. wuxuuna jecel yahay in uu wax ka bedelo. haddaba bishan waxay aad muhiim ugu tahay qof walba oo doonaya inuu isbedelo inuu ka faa'iideysto fursadeeda oo ah nicmada iyo raxmadda uu Ilaahay bishan ku galaday. waxaan aragnaa dad laga yaabo inay drugs isticmaali jireen, sigaar isticmaali jireen, smoking. haddana bishaas fadligeeda markay soo gasho ay bilaabaan in ay soomaan isbedela oo cadaadkaas xun ka taga. waxaa jirta sidoo kale qaar laga yaabo in maxaan ku idhaahdaa iyaga laftirkoodu ayna salaadaha tukan jirin, laakiin marka ay bishan timaado noqdo dadka ugu horeeya ee salaada ooga. marka waxaa ka imanaya inuu qofku isbedelo. waxaa dhacda qofkaasi inuu ilaa sanadkiisa laga soo gaarayo bisha kaleetana uu energy kaleeta kasii qaadanayo oo maxaan ku idhahdaa dab kale kasii qaadanayo inuu sidaasii ahaado oo maxaan ku idhaahdaa taqwada Ilaahay una mar dambe ka leexanin. haddaba waxyaabaha aynu ku qaadanayno barnaamijkeena maanta intaas waxay noo ahayd furniin iyo hordhac. waxaa ka mid ah speed of anger ama xawaaraha xanaaqa, qofka oo degdeg ku xanaaqa. bisha Ramadaan oo kale waxyaabo badan baa jira oo qofka maxaan ku idhaahdaa u fududeeyo inuu xanaaqo. wayba kasii darantay haddii aad ahayd qof iska xanaaq badnaa markiis hore oo caadadaas xun ay xanaaqa lahaan jiro oo aan isqaban karaynin. marka bisha Ramadaan ay timaado xanaaqaagu haddii uu mar walba noqdo mid maxaan ku idhaahdaa siyaada ah oo haddii la jaleeco ama haddii maxaan ku idhaahdaa wax yar oo tababa markiiba maxaan ku idhaahdaa qarxaya. waxaa imaanaysa in xasanaad badan ay ka burburayaan, dhibaato badan ay ku wajahaysa, nafsiyan wada xanuunsanaysaa, maxaan ku idhaahdaa maskaxiyana dhibaato ay ku gaarto oo maxaan ku idhaahdaa isku buuq iyo stress iyo maxaan ku idhaahdaa diiqad iyo xanuuno kala duwan aad dareentid. isla markaasina xasanaadkii soonka uu hoos kaaga digo. waxaa jirta maxaan ku idhaahdaa halku dhigyo loo soo qaato marka laga hadlayo xawaaraha xanaaqa ama speed of angerka, surcat alqadab qofka sidoo u yaqaano. imaam Ahmed ayaa laga soo wariyaa inuu yiri mar 19 ama maxaa ku leeyahay 19 saacada waa fi taqaaful, yani 10kiiba 10 haddii ay tahay farxado 9 kamid ah waxay ku jirtaa qofku inuu iska indhatiro waxyaabaha maxaan ku idhaahdaa aan muhiimada saas aan lahayn, isla markaasina laga yaabo in isaga waqti ka qaataan jir ahaan iyo nafsi ahaanba ay xanuun ugu reebaan, dadka cadaawad ay dhex dhigaan, maxaan ku idhaahdaa yani aan faa'iido badan ugu jirin, isla markaasina isaga wax badan ka kala daadinaya. marka waxaa wanaagsan in qofku wixii uu arko in ayna saameyn weyn yeelaynin uu iska indhatiro, uu ka socdo, uu macaleesh ka qaato. waxaan leenahay macaleesh leh wixii aan ku jibinayn, wixii aan dhibaato weyn ku geysanaynin. khaladaadka ummadda aad bay uga dhacdaa, dad badan khaladaad ka dhacbaa jira. laga yaabaa markaas in waxa akhriyay u aragtid, laakiin xataa had markaad digtid aad nafistid waxaas uuna khalad kula muuqanaynin. sidoo kaleeto qaab waxaa jira loo xakameeyo cadhada iyo xanaaqa.
xirfado dhan weeyaan oo la qaato xirfadda xakamaynta ama hab xakamaynta xanaaqa iyo cadhada insha Allah hadduu alla idmo waxaan ka qaadan doonaa iyadoo maxaan ku idhaahdaa course oo kaleeto waan ka diyaarin doonaa casharo ayo dhamaystiran iyadoo aan waan ka diyaarin doonaa laakiin hadda wax yar haddii aynu maadaama muhiim u arkayno xanaaqa in uu wanaagsanayn wax yar oo maxaan ku idhaahdaa diinteena inuu kula tarisay dadka maxaan ku idhaahdaa cilmigan xarfaanta ku ah wax badan ka diyaana inuu kula taliyo waxa kamid ah in maxaan ku idhaahdaa marka aad xanaaqdid aad isqaban kartid maxaa la yiri marka aad xanaaqdid waxa la yiri iltamis li akhirka 70 cudran walaalkaaga si kasta oo maxaa ku idhaahdaa uu kaaga xanaajiyo ama wax ku yeelo taleefanka qaban waaya dhibaato kale ka soo gaadhaya balan aad isku ogeedin oo fin waaya 70 cudur daar u samee laana adiga ma ogid waxa ku sababay ama waxa gayaansiiyay in uuna maxaa ku idhaahdaa adiga uu dhibaatadan ku geysto ama aad adigu ka xanaaqdid ama ballantii uu kaaga baxo ma garanaysid soo waa inaad 70 cudur ma sameyn karnaa 70 cudur daare in aad 5 isku daydo ilaa aad ka fahmayso xaaladaas waxa gaarsiiyay iyo waxa uu sababta kuugu sameeyay sidoo kaleeto waxyaabaha xanaaqa keena bisha Ramadaan waxa kamid ah horena waan u yara taabtay qofku marka uu sigaarka cabayo qofku marka sigaarka cabayo ama daraagas kale qaato xilliga uu sooman yahay hadii uu soomo waxa dhacaysa maadooyinkii jirka uu la qabsaday ee laga qaadayay in uu waayo taasina ay xanaaq keento waxa kaleeto oo jirta misconception wax la yiraahdo ama isaatu dan qofku inuu qofka khalad ka aamino isagoo ba khaladka ula jeedin waxa wanaagsan qofku inuu isku dayo inuu qofka waqti siiyo saynu sheegaynay inuu maxaa ku dhacday cudur daar badan siiyo isla markaasina uu noqdo qof mar walba dhanka wanaagsan wax ka eega in bacda dan itmaati laha quraanka ilaahay inuu ku sheegay waxa kale oo aynu ku eegi doonaa isla mawduuceenan qofka oo dhayalsada qiibada ama xanta bisha Ramadaan xanta sida waa mamnuuc ilaahay aayad ku soo dajiyay wuxuu ku tilmaamay marka aad qof xamatid in aad sameysay walaalka oo meed aad cuntay kaba soo qaad bil Ramadaan adigoo af xidhan in aad walaalka oo meed cunto runtii waa wax aad looga naxo marka aad suuraysato ama aad isdhahdo khiyaal ku eeg qofba aad maxaa ku ilaahay dadku ixtiraamaan u jecel yihiin looga dambeeya dad buu asxaab leeyahay shaqa ka dhaxaysa wanaag fara badan baa ka dhaxeeya waad isku aragtay gadaashiisa soo martay waxyaabo badan oo xun oo ama ku arag ama ha ku arkina waxba isku dartay oo qofkii ka sheegtay qofkii halkaas maxaan ku leeyahay xiriiradiisa qurux badnaa ay ku baaba'een dambigaas adiga iska leh xanta marna ma wanaagsana bisha Ramadaan waa kadalik qofkii sifadaas oo kale laga yaabo inuu leeyahay waa fursad uu ku bedeli karayo bisha Ramadaan inuu ku bedelo arinta ah qiibada ama xanta ah enviga waxa kale to xasadka ابن تيمية وحو يري ما خلا جسد من حسد يعني ما جرو جر حاسدنمو كمدح بنان كل إنسان قدرنا هاي حاسدنمو وين ugu jirtaa oo wax qofka bini aadamka ah kulamaan sida uu sheedaanku ugu lamaan yahay laakiin waxa laba kala noqonaysa oo kala qurux badan maadaama naftu waa la amaarata bisu la yiri oo ayada inoo horseeda la yiri in nafsa la amaarata bisu iyadoo la yiri in maxaan ku ilaahday aad marka aad aragtid wax aad xastaysid laana tartanka aad qof la tirtamaysid halka aad u socoto dadaalka seexan waaga waxa soo dhan waxa weeyaan in aad adigu dadka ka horeyso oo kale in maxaa ku ilaahday ama aad la mid noqoto ama hebel lagu dhaho ama aad wax cusub soo kordhiso ama aad adduunka wax ka qabatid waxa soo dhan waxay ku imaanayaan isbarbar dhig marka hore inaad ku bilowdid ayada isbarbar dhig laftirkeedu uu xun yahay oo fiican tahay inuu qofku cidna isbarbar dhigin naftiisa laakiin hadii aad tahay qof iska fadhiya hadafyo u gooniyo lahayn maxaa ku ilaahdo waxyaabo badan oo sameeyo ama hami nolosha aan ka lahayn marka aad aragtid qof kale wuxuu yahay adigana naftaadii xayndaabka aad ku dhalatay ay taagantay waxaad oranaysaa waay anigu aan sidan u ahay isaguna muxuu sidaa u yahay isbarbar dhig halkaas uu ka soo geliyaa laakiin marnaba maxaan ku ilaahdaa waxa laga dheeraado waxa weeyaan in aad naftaada naf kale aad barbar dhigto marka xaasidnimadu mar walba way imanaysaa laakiin waxa aad kaga duwanaanaysa qofka intuu xaasidnimada sifada xaasidnimada leh laakiin haddana jecel in uu qofkani waxa wanaagsan waayo jecel qofkan maxaan ku ilaahdaa in uu nimcada Ilaahay siiyay waayo jecel qofkan hadduu awlaadi maal laha in uu waayo isaga uu wanaagsanaado qofka selfishka anaaniga ah waxa aad kaga wanaagsanaanaysaa adigoo sifada laftirkaagu xambaarsan oo aan ka marnayn sida la inoo sheegay
in aad qofka markaad aragtid wax wanaaga uu sameynayo aad ugu ducaysid inuu ilaahay u sii wado axaadiis baa ku soo aroortay adiga laftirkaaguna aad ku ducaysatid inuu ilaahay nicmada ku siiyo ilaahay u daa anigana isii qodobadaas ayaan ku soo qaadanay qodobada dhamaantood waa qodobo anfacaya qofka doonaya bisha Ramadaan inuu isbedelo ama caadad xun uu leeyahay ka tago ay aad u anfacayaan waxaan soo qaadan doonaa 4 hab oo fursadda isbedelka ka caawinaya in aad si toos ah aad ugu abaarto u gasho xalqadeena kale ayaan ku qaadanaynaa Ramadaan Kariim bayaan leenahay taqabbal Allah minna wa minnakum saalih al-a'maal